raadi BBC News Soomaaliya halkaasi oo aad ka heli karto muuqaallo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkaba nagala soco boggayaga BBC Soomaaliya Twitter iyo waliba Instagram wali waxaan soo socdaa oo qaybta dambe ee barnaamijka aanu ku eegi doonaa faaqidaadii ciyaaraha ee toddobaadkan caawana waxaan idinku haynaa Liverpool oo ku garaacday 5-1 kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo waliba ciyaarihii ugu dambeeyay horyaalka Ingiriiska maxaa sababay guuldarrada Arsenal iyo waliba horyaalkan ma qaadi kartaa Liverpool qodobadaasi ayaanu ku eegi doonaa qadar daqiiqada kadib wali waxaad daawaneysaan caawiya caalamka balana xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn waxaa goor dhaweyd looga dhawaaqay magaalada Garowe xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland oo toddobaadka dambe dooran doona madaxweynaha ka talin doona Puntland 5 sano ee soo socota dib u dhacyo dhaadheer mashiinadii lagu codeynayay oo halaabay ayaa saameeyay doorashooyinkii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo laakiin arrintaasi ma keeni doontaa xil isku wareejintii ugu horeysay ee nabadda ee ka dhacda wadankaasi sanad ka hor ayaa sabab la xiriiray dayactir awgood waxa hakin loo geliyay dhawaaqa saacada caanka ah ee London ee la yiraahdo Big Ben hase waxa la sheegayaa in dhalashada sanadkan cusub oo caawa aanu xiiso badan yeelan doonin marka la eego magaalada tan London haddii aanay saacadaasi dhawaaqeedii lagu yaqaanay sameyn balse waxa la sheegayaa in baarlamaanka wadankan uu ku dhawaaqay in saacadu munaasabadaasi darteed caawa ay dhawaaqi doonto wariyaha BBC-da Tim Moffat ayaa u kuur galay sida saqda dhexe caawa looga dhawaajin doono Usmaan Cabdi Xasan ayaa noo faahfaahinaya waa 399 tallaabo si loo koro halka ugu sarreysa dhismaha inta badan la qaldo magaciisa dayactirka dhismaha Elizabeth oo ah halka ay ku taala saacada Big Ben ayaa hadda degdeg lagu kori karaa Hi Adam, good to see you. Good morning. Wow, Nice to see you. this is an amazing spot, isn't it? It's a huge privilege, obviously, to be able to... arrintani waa sharaf aad u weyn in la qabto darbiyada dhismahan bam ayaa waxyeeleeyay dagaalkii labaad ee adduunka iminkana waa fursadii ugu horeysay ee tin ilaa cirib la dayactiro oo shaqo hufan laga qabto horaantii sanadkii hore ayay shaqadu bilaabantay waxayna soconaysaa ilaa 2021 inta ka horeysa lama maqlayo dhawaaqyada lagu yaqaan dalxiisayaal badan ayaa jira oo arrintan aad uga niyad jabay waxay London u yimaadeen oo kaliya inay arkaan dhismaha saacadan ku dhawaad 160 sano waxa uu gacanka dhawaaqa sameeyay ka shaqaysiinayay saacada With the original clock... caqabadaha halkan ka jira ayaa ah in dib loo soo celiyo qalabkii hore ee saacadda haddaba siday suuragal ku tahay saacadda adduunka ugu caansan in munaasabada gaar ah ay dhawaaqdo waxaan heer ka dhignay inay helaan dhammaan munaasabadaha qaranka sida xuska axadda iyo sanadka cusub marka ugu horeysa saacaddan waxay shaqaynaysaa November waa kombiyuutar ku xidhan GPS-ka aaladiina dhismaha ayaa hesha signalka kadibna u sheegta in mashiinku shaqeeyo oo ka dhawaajisa gacanka saacadda That's exactly what happened on Remembrance Sunday, and it works extremely well. waa dhawaaqa sanadka dhammaanaya iyo kan soo socda dayactir kasta waxaa ka muhiimsan in saacadda aan la aamusin
saacado yar ayaa naga xiga bal markana Ismaaciil Saleebaan waa 15 jir waxa uu dheelaa xulka kubadda cagta ee qaranka ee Soomaaliya waxa uu ku noolaa xeryo barakacayaal oo ku yaala Muqdisho 18 bishii 6 ee sanadkan ayaa Ismaaciil waxa uu nooga warramay noloshiisa kubadda cagta ciyaaryahan Ismaaciil ayaa soo galaya akhlaaq ayaa ciyaari doonta Bruno ayaa ciyaari doona mid ka mid ah ciyaartooyda barakacayaasha ayaa soo galaya Ismaaciil waxa baxay macallin tare aad oo faraxsanahay ciyaartooyda hadda aan ahay xulka qaranka lambarka koowaad inkastoo dhihinin ciyaartooyda kale laf dhabarta aad oo faraxsanahay aniga ciyaartooyda kale degan magaalada kan Ismaaciil Soomaaliya Ismaaciil banaanka oo u dheelay ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya booska 12aad ilaa ay booska 9aad u saftay kulmada in aan ku dheelaynay safarka aan baxnay idil yaraanteeda aniga waxa ku dhashay Shirkole waxa ku soo koray meel lahayo 15 October waxaan soo degnay Digfeer ilaa iyo Digfeer ay soo guurnay asluubta degnay asluubta hadda inta ku sugnaay sarkuus biloon aniga horta waqti hore soo bilaabay madhahay laakiin dhabaana soo bilaabay aan ku faraxsanahay meesha hadda ka taaganahay aniga subaxdii waa soo kaca 6 saac 7 saac caalmindada aan aadi jirnay sida caalmindada aan ku soo qaadeynay marka caalmindada ka soo baxo galbihi aan soo aadi jiray xaafadeena sida xaafadu imaado howl yar yar oo guriga ka dhimanaa dhameystiray habeenkii haddana bareefad labada aadi jiray waxaan ka qayb galay ciyaartooyda qaranka inaan noqdo ciyaartooyda xaafadda oo koobka qaxootiga la dheelaayo ayaan isku daray sidaas awgeed waxaan noqday ciyaaryahanka ugu fiican ayaan meeshaas aan ku guuleystay sidaas awgeed dadaal fara badan juhud fara badan oo macallimiinteena ayna siiyeen halaan ku soo gaarnay aan xulka u baxnay qaranka isbedel aad iyo aad weyn aan ka dareemay inaan baxo xulka qaranka Soomaaliya waxaan dad badan aan arkay taageeriye aan ku faraxsanahay waxaan rajeynayaa ciyaartooyda qaranka Soomaaliya sida Maxamed Ismaaciil iyo ciyaartooydii aan nala tusay aragnay in ay camal ku deysano aan rajeynayaa waa wax qoran oo alla agtiis ka socda in xulka qaranka matalo laakiin anaga dhiirigelin macallimiinteena keenay iyo wadannimo nagu jirta ayaan muujinaynay sidaas awgeed aan dadkaas iga dhicinayn Ismaaciil haddaan intaa kaga gudubno iminkana bal aynu eegno qaybta faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan ee caawiya caalamka waxaa stuudiyaha ila jooga Maxamed Axmed Deystan oo arrimaha ciyaaraha ka faalooda bal ciyaarihii dhacay toddobaadkan usbuucan ciyaaro aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhacay oo Brighton 1-0 waxay ugu adkaatay Everton ayay ugu adkaatay Fulham waxay 1-0 ugu adkaatay Huddersfield Town ayay ugu adkaatay Watford iyo Newcastle-na waxay ku kala tageen 1-1 Leicester oo ka soo adkaatay City iyo Chelsea gurigooda 1-0 ayaa Cardiff uga adkaatay Liverpool waa la soconaa ayadana 5 gool inay uga adkaatay Arsenal iyo 1 oo ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayay aad Southampton City oo 2 ciyaar laga adkaaday 3-1 ayay uga soo adkaatay Tottenham oo ayadana garoonka Wembley 1 gool intay la hormartay 3 ay ka dhalisay Wolves ayaa dhacay Crystal Palace ayadana Chelsea ayaa 1-0 uga adkaatay waan gartay marka ciyaarahaasi oo dhan ciyaarihii ugu xiisaha badnaa haddaanu eegno kooxdan Liverpool 5-1 bay kaga adkaatay Arsenal marka sababtu maxay ahayd waa la yaabay ugu weyn waxay ahayd waxaan la soconaa Liverpool inay weerar xoog leh ay qabto oo Mane iyo Salah iyo Firmino ay xoog ku socdaan gadaalna ay nimanka difaaca ay gadaal ka socdaan waxaan ognahay Arsenal inay difaac fiican aysan qabin inkastoo goolka ay la hormartay kadibna waa la soconaa in Firmino goolka koowaad uu dhali iska laaf kii labaad inuu ayaga dhinto dhaxmaray oo si fudud uga dhashtay weerar walba ay Liverpool ay soo qaadana waxa u malaysaa inuu gool u ekay laakiin Liverpool kadib markay gool dhalisay waxba laga dhali jiray laakiin sanadkan waxa u malaysaa inaysan arintaas aysan jirin oo Van Dijk iyo goolhayooda Alisson say u yimideen inay gadaashoodan ay adkaatay oo gool dhalintii aan laga dhalin ay labadaas u yihiin muhiim weyn ay gadaal Arsenal marka laga yaabaa inay isbedel wax sameeyaan oo hadda tababarahoodii bal inuu dib u fakiro
كل جول درده ku dhacday waxay tusaysaa Arsenal inay difaaceen weerar walbo lagu qaado waxay u akaad in gool laga dhalinayo ay u akaad qaybta horeeta afar laga dhali qaybtan waxa dhici karta afar kale in laga dhali laakiin Liverpool waxay u akaad inay sugayso ciyaar ay City la ciyaari doonto oo xoogay xoogii ay ku waday ay ka yareysay Manchester City hoos bay u yar dhacday hadda laakiin kaalintii labaad bay soo gashay awalna iyada hoggaanka haysay ma la isdhihi karaa mar kale ay horyaalka qaadi kartaa City waxaa loo maleeyaa hadda Fernandinho ayaa ka maqnaay labada ciyaar oo laga adkaaday Fernandinho ciyaarta Southampton uu soo noqday City-na dadku waxay ku sameey jirtay gool badan ay ka dhali jirtay oo quusi jirtay laakiin hadda waxaa u maleysaa inkastay saddex ku adkaatay Sterling laba fursado beerdareeyay Aguero laba beerdareeyay Silva Mahrez kubada badan ay cuneen inkastay saddex dhaliyaan laakiin 4 iyo 5 iyo gool badan ay ka dhali jireen kooxdan quusay ay muujin jireen difaacuduna waxaa u maleysaa waxa u taga inay ka dhalanayso laakiin waxay og tahay inay ka soo kabsan doonto City-na waxay rajadeeda ku xirnaa doontaa Arbacada oo Itixaad ay kula dheeli doonto Liverpool taasoo ciyaartoor ever ku dhex martay haddii City ay guul gaarto afar dhib ayaa laga horneed kulli 17 ciyaar dhiman Liverpool ma u maleynaayo inta ciyaar u dhiman inay wada badi doonto laakiin rajadaas haddaan si kooban u eegno Manchester United ayaduna saddex ciyaarood ay ciyaarto waxa leeyahay 12 gool bay dhalisay Ma United waa isbedeshay Mourinho xilligu joogay xilli waxay kooxda ay difaac ku jirtay hadda waxa la isu bedeshay weerar ay noqotay Pogba waxa aragnaa 4 gool inuu dhaliyo taasna waxa keentay dhaxdow ka dheeli jiray laakiin Mourinho uma ogoleen inuu xariiqan 18 oo galo oo dhaqaaqiis uu xadadnaa laakiin hadda waa la fasaxay laba gool u dhaliyay ciyaartoore laba gool u dhaliyay Martial waa aragnaa soo dheelay Rashford gool u dhaliyay Lukaku oo wax dhali weysna gadaal ka yimid gool u dhaliyay kooxdu waxay noqotay koox hadda weerar ku socota laakiin ayagana waxaan ogaan doonaa ciyaarta ay la ciyaari doonaan Tottenham taas ayaa la ogaan doonaa in Man United kooxda lixda ku jiro inay kaalinta afraad xoogsatay in kale hadda koox yar ay la ciyaaraysa laakiin awoodeeda waxaan ogaan doonaa in ka saacideynaysa ka waran suuqii kala gadashada ciyaartoyda maxaa iyaduna si kooban hadaad noo doodo suuqii kala gadashada sida aan la socon January ayuu furmaya laakiin ma u maleynaayo kooxan waaweyn oo kor jira inay dad u baahan Liverpool dad u baahan City Fernandinho booskiis ay qof u rabtay laakiin Arsenal ka waran wax ma soo gadan doonaan kulli haddii fursad helaan difaac ay u baahan yihiin dad ay soo gadan laakiin suuqa waxa u maleysaa kooxaha dhacayo inay aad iyo aad wax u gada doonaan suuqana ay dad badan ku qasbi doonto inay wax soo gataan marka haddii markaan dib ugu laabano waxa tiri way adag tahay ciyaarta soo socotaana lagu kala ogaan doonaa Man City iyo Liverpool sanadkan ma isleeyahay Anfield bay geyn doontaa koobka waa u egyahay say ku socoto waa la soconaa ciyaartii ugu dambeysay Everton saacadii afka lagu hay ayay goolka ay ka dhalisay mid kale waxay gurigooda ku soo tuntay Tottenham ayay gurigooda uga soo adkaatay marka waxa u jeedaa sida ay ku socota ayaa u jeedaa in Liverpool la celi karin ay xoolo ku socoto hore iyo gadaalna ay ka fiican tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Axmed Deysane oo arrimahaasi ciyaaraha toddobaadkan ka faaloonayay daawadayaal waxaan idin leeyahay mar kale sanad wanaagsan sanadka 2019 oo saacadoon iminka nooga harsan yahay inkastoo meelo badan oo dunida ah mar horeba sanadkii la galay sida Australia oo kale inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeena caawa oo ahaa kii ugu dambeeyay sanadkan 2018 intaanu mar kale dib u kulmayno dhamaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa aniga iyo asxaabtaba sidaa iyo habeen wanaagsan